maruu ka furmo dalkaasi Australia. haddaba isbeddelkan ku yimid xagga awoodda ciyaartoyda xulka Soomaaliya ayaan la inkiri karin inay ku timid ciyaartoyda tayada wanaagsan ee xulka kaga soo biiray dalka dibadiisii kuwa oo muujiyay adkaysi iyo dadaal dhan walba. Ismaaciil Maxamed Cumar Diyeeshe wuxuu horay ugu soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya waxaana uu inta badan u ololeeyaa in ciyaartoyda dalka dibadiisa ka dheesha ay fursad u helaan in xulka qaranka Soomaaliya ay metelaan. wuxuu ku sugan yahay magaalada London ee cariga dalkaas Ingiriiska waxaana markii hore aan weydiiyay dareenkiisa ku aadan guusha caawa xulku gaaray. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. saaxiibkay Saciimka waan kaaga mahad celinayaa boqolkiiba boqol runtii boqolkiiba boqol waan kaaga mahad celinayaa dhiirigelinta aad ugu dhiirigelisay in shaqadeeda maanta aan sii wato oo maantana natiijadii aan wada gaarnay dhammaan oo runtii ciyaartoyda qurba joogto oo ay u suurto gashay in dalkii ay matalaan adigoo og in waqti aad dheer ay soo qaadatay. waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dhammaan dadkii garabka igu siiyay dhammaantooda aan inta lagu soo koobi karin anigoon runtii aan kala saaraynin laakiin ka adi ahaan wariye ahaan runtii aad ayaan kaaga mahad celinayaa boqolkiiba boqol dhiirigelintii aad igu dhiirigeli jirtay in maanta aad aragtay ciyaartoyda qurba joogto iyo ciyaartoyda dalka haddii la isku daro in natiijo ay imaanayso taas aniga waa aaminsanaa weligeygaba. waxaan dhihi karaa runtii riyadeedii oo iirimoodi runtii aad ayaan ugu rayo macnaha weynaa in aan arko hal maalin ciyaartoy qurba joogto iyo ciyaartoyda dalka oo wada dheelaya runtii aad ayaan ugu riyo jiray tiina maanta waa runtii goobjoog ayaan u ahay farxadeeda caawa lama soo koobi karo. Ismaaciil wuxuu isku taxaluujiyaa inuu la xiriiro ciyaaryahanada qurbaha kuwooda ugu wanaagsan isagoona xiriirka kubadda cagta dalka Soomaaliya kala shaqeeya sidii xulka loogu soo biirin lahaa ciyaaryahanadaasi. hadda in ka badan 10 ciyaartoy oo dibadda ka ciyaarta ayaa asal u ahayd guushan taariikhiga ah ee Soomaaliya gaartay. Diyeeshe ma aaminsan yahay in guushu ay ka timid xidigaha qurba joogta ah muxuuse ka yiri rajada xulka kulanka lugta labaad ee 10 bishan Zimbabwe gurigooda marti loogu noqon doono. waxa macna ma sameynayso in haddii aniga lay magacaabo iyo hadiiba lay magacaabin kulliba aniga wadankeyga ayaan u shaqeyn lahay in natiijo aan gaarno ayaan u shaqeyn lahay haddii hataa maanta lay magacaabin hataa oo u shaqeyn lahay si oo macnaha maanta oo aniga riyadeedii ayay ahayd in maalin aan arko ciyaartoyda qurbaha ka dheelayso iyo ciyaartoyda dalkooda dheelaya in ay keenaan natiijo waa ku hami weynaa taas adina waa ogtahay runtii farxadeeda lama soo koobi kara caawa. runtii boqolkiiba boqol Saciimka adigana waa kaaga mahad celinayaa adiga iyo asxaabtaada waan iga mahad celinayaa runtii ciyaarta kale labaad Zimbabwe lagu dheelayo gurigeeda runtii saa ogtahay wadan kasta markuu gurigiisa ku dheelayo wuxuu haystaa intaas oo milyan oo taageero ah oo runtii ayuu garab ka helaa. runtii maanta waxaan aaminsanahay aniga hataa hada maanta aan ku dheeli lahayn dalkeeni in intaas oo milyan taageero la heli lahaa maanta natiijadan mid ka sii fiican aan siin gaari lahayn laakiin intii maanta garoonka ku sugnay Djibouti joogtani runtii maasha Allah waxa aad u fiican dhiirigelin ayay muujiyeen ayagana maanta dalkooda ay ku dheelayaan waana fahmi kartaa dhinac walba ayay macnaha ka haystaan taageero. marka insha Allah rajadeeda aad u fiican tahay inaan guul gaarno. tani kulay waa bilaaw aniga arintan waa soo waday arintan ani kaligeyga maanta meeshan ma soo gaarsiinin waa soo wada gaarsiinay ka adiga Saciimka ah قدوميها عبد القني سعيد عرب هذا سأكتب وحاجه سعيد زينو أيجوه صومالي إيجن أورنتي كارين أدوين كقاطي إن أصينا قيبتيس إنه كذا قال لنا عيارتو إنه كانوا وحاجه عبد الشذاني أصينا صومالي إيجن كله وأصينا جرو وأركدونتين إن شاء الله وحاجران معلمين صوماليات أنت لو سوكوي كرن أو إذا جرو أبردونتين إن شاء الله. laakiin maanta waxaan dhihi karaa runtii riyadeedii oo iirimoodi runtii uu saa'ogeed in maalinkii aan arko ciyaartoydan oo wada dheelayaan runtii aad ayaan ugu faraxsanahay aad maanta shucuurtii lama soo koobi karo Saciimka. ku soo dhawaad Muqdisho Media Center oo aad ka heli doonto waxyaabo ku cajab geliya maad iyo waliba warbixino xiiso badan iyo dhanka fanka suugaanta. hayloobin inaad subscribe garayso, like garayso, comment garayso, share garayso. soo dhawaada.